Maamulka kala duwan ee gobolka Awdal oo maanta kulan iskugu yimid ayaa waxay bayaan ka soo saareen xeerka kufsiga oo muddooyinkii ugu dambeeyay muran badan ka dhaxdheliyay bulshada reer Soomaaliland iyo xisbiyada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Kulankani oo ka qabsoomay gudaha magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxa ugu horeyntii ka hadlay Sheekhul Beledka gobolka Awdal Sheekh Cabdilaahi Sheekh Cali Jawhar iyo sidoo kale Sheekh Shiin oo ka mid ah culimada gobolkani Awdal ayaa culimada gobolka Awdal iyo Salal maanta oo ay taariikhdu tahay 24 bisha sagaalaad sanadka 18 waafaqsan 1440 bishii Muharram ee hijrada Islaamka oo iyaduna ah 14 culimadu waxay aad u eegeen oo ay ka doodeen xeerkan kufsiga iyo xadgudubka jinsiga ee dhawaan golaha wakiiladu ay xeerka ka soo saareen waxaana culimadu ka soo saareen qodobo ay ka soo saareen arintaasi waxaan ku wareejinayaa mikrofoonka afhayeenka culimada gobolka Awdal iyo Salal Sheekh Maxamed Cabdi Xasan isaga ayaa idin faahfaahin doona iyo afartan bayaan ayay culimadu ka soo saareen xeerka ay ansixiyeen golaha wakiilada Soomaaliland xeerkaas oo ay ugu magac dareen ama u bixiyeen xeerka kufsiga iyo xadgudubyada jinsiga ah kaasoo ku taariikhaysan ama ku nambaraysan 78 xariijin 2018 culimada gobolka ama gobolada Awdal iyo Salal markii ay u kuur galeen xeerkaas iyo cutubyadiisa kala duwan waxay arkeen inuu xeerkaasi khilaafsan yahay guud ahaan shariicada islaamka sidaa darteed culimadu waxay ka soo saareen qodobadan kow in ay culimadu diidan yihiin xeerkaas oo ay u arkaan inuu khilaafsan yahay shariicada islaamka sidaa darteed aanu noqon karin xeer loo sharciyeeyo ummadda qodobka labaad maadaama uu macnaa waxa dhigayo dastuurka waddankeena Soomaaliland inuu wax kasta oo sharciga khilaafsan uu yahay mid aan sharci noqon karin xeerna noqon karin laguna dhaqmi karin waxay culimadu u arkaan xeerkani in uu sidaas yahay oo khilaafsan yahay sharciga islaamka aanu dhaqana karin sharcina aanu noqon karin qodobka saddexaad culimadu waxay u soo macnaa waxa weeyaan ugu hambalyeynayaan ama ugu bogaadinayaan madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Bixi Cabdi hakintii uu hakiyay xeerkaas waxay u soo jeedinayaan oo waliba ugu beerinayaan inuu xeerka laalo oo gabi ahaanba madaxweynuhu joojiyo isagoo irkanaya macnaa waxa weeyaan dastuurka dalka u yaala qodobka afraad waxay culimadu diinku soo jeedinayaan golaha wakiilada Soomaaliland in aanay xeer ka dhigin oo aanay sharciyeynin soona saarin xeerar aanay kala tashanin culimada dalka gaar ahaan xeerarka wixii khuseeya shariicada islaamka waa inay u bandhigaan oo ay kala tashadaan culimada dalka oo ay markaa culimadu wixii ay u sharceeyaan ay xeer ka dhigaan markaa uu xeer noqon karo qodobka shanaad waxay culimadu golaha wakiilada u soo jeedinayaan inay ilaaliyaan dareenka dadka muslimiinta ah ee ay golaha ku matalaan iyo karaamada iyo xurmada diinta islaamka kana fogaadaan wixii keenaya cadhada Ilaahay oo ah wixii sharcigiisa khilaafsan waana inay ka noqdaan ansixinta xeerkan ay ansixiyeen raali gelina ka siiyaan waxa weeyaan ummadweynta Soomaaliland ee ay matalaan culimada gobolada Awdal iyo Salal oo uu hogaaminayo Sheekhul Beledka Sheekh Cabdilaahi Sheekh Cali Jawhar way ka macnaa waxa weeyaan la joogaan xubnaha golahaas oo macnaa waxa weeyaan maanta halkan ku dhan waxay dhamaanba ay u dardaarmayaan dadweynaha Soomaaliland